dunidu waxay ka kulushahay 1 digrii Celsius intii ahayd marka loo fiiriyo sanadkii 1800 haddii ay dunidu ka kululaato 1.5 ilaa 2.0 digrii Celsius intii ahayd marka loo fiiriyo 1800 ilaa sanadka 2100 waa xaalad caadi ah sida ay tilmaamayaan saynisyahanadu laakiin sida ay hadda wax ku socdaan inta aan la gaarin 2030 ayay dunidu ka sii kululaanaysaa 1.5 digrii Celsius intii ay ahayd marka loo fiiriyo sanadkii 1800 intii u dhaxaysay sanadkii 2010 ilaa 2020 waa 10kii sannadood ee ugu kululaa adduunka intaasi waxaa dhacay 3450 dhacdooyin ah oo la xiriira isbeddelka cimilada waxaana ka mid ahaa abaartii ugu darneyd ee Soomaaliya ku dhufata 40kii sano ee ugu dambeysay waana abaartii dhacday sanadkii 2011 waxaana abaartaas ku naf waayay 250,000 oo qof sidoo kale waxaa dhacay duulaankii ayaxa ee 2019 ilaa 2020 kaasoo ahaa duulaankii ayaxa ugu weynaa 40 sano ay wajahaan wadamada Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana uu ka dhashay isbeddelka cimilada Soomaaliya sanadkii 1901 waxa uu annual meanka heerkulkeedu ahaa 26 digrii Celsius laakiin 2021 annual meanka heerkulkeedu waxa uu ahaa 28 ilaa 29 digrii Celsius Soomaaliya sanadihii 1910 ilaa 1990 waxay 10kii sanaba la kulmi jirtay abaar daran laakiin hadda abaaruhu waa isdul saaran yihiin waxaana baaqday xilli roobaadkii afraad oo xiriir ah ayadoo la filayo midkii shanaad inuu baaqdo sanadka 2023 isbeddelka cimilada ha yaraysan ayadoo dalkaada uu yahay ka ugu daran ee uu saameynayo